alxamdulilaah mar walbo allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale. maanta waa maalintii 3aad ee bisha barakeysan ee ramadaan. ilaahay ayay mahadaasiita u sugnaatay. maalmaha noo harsane nabad iyo caafimaad ilaaha noogu dhameeyo, allaahuma aamiin. markii afurka la kariyo kabacdi waxaa fiican in luubaan guriga lagu shido sida markaaseti caraf ay guriga u siiso oo jawi nadiif ah ee siiso. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلي أصحاب وإذن سلام من مال والبوادوني ذا كجوكتي إي حلي والبوادين تاعي. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. maanta waxaan ila wadaagayaa sida aan shurbada aniga u sameysto amaba mishaarida. shurbada runtii xilliga ramadaanka aad iyo aad ayay muhiim u tahay maadaama maanta dhan lasoo soomnaay. marka hore waxaa fiican qofka inuu ku bilaawdo shurbad amaba wax khafiif ah sida wax biyo badan leh sida furuudka, qaraha iyo shurbada ayaa aad u muhiimsan. maalinta koowaad ee bisha barakeysan ayaan jeclaa anoo karinayna nila soo wadaaga laakiin waqtiga ii saamixi waaye. maanta ayaa allah subxaana watacaala iga soo qaaday. shurbada waxaa fiican inay aadna u adkeen khafiifna ay ahayn, dhexdhexaad ay ahaato. daawasho wacan asxaabta. maanta waxaan ila wadaagayaa sida aniga u karsado shurbada. qof walba nooca u karsadaa amaba maraq qof walba siduu u yaqaano. meeshan waxaa ii yaalo hilib oo u badan laflafo sababtoo laflafaha maraq badan oo macaan ayay siinaysaa shurbada. banaanka soo dhigaa. hadda waxaan soo diyaarsaday digsigaana ku shubaya waana soo dhaqaya biyo kasoo buuxinaya kadib ayaa idin tusinaya. maasha allah waa soo dhaqaad waa soo nadiifiyey biyo kusoo shubay dabka u shidaya. markuu hilibka si fiican usoo bislaado ayaa waxyaabaha ku dareynaa. sidoo kaleeto hilibka markuu cabaar soo badbado kordhan xunbey soo yeelanaysaa. xunbadaasna waa ka qaadaya waa idin tusaya insha allah. hadda dabka u shida. markuu soo badbado ayaa soo laabanaya. xunbadan dhan inaa hilibka kor aad ka qaadid waa oo nadiifisid. waa u jeediin kan dhan waa kasoo daadinayaa. kadib markaaseeti si fiican u badbadayaa. caraftiisa ku daraya. marqii si fiican usoo karkar xoogaa wuu bursaday. haddana biyaa ku daray. hadda marka waxaa ku darayaa xawaajiyaasha. xawaajiyaashana adeeg ugu xiran tahay. kan waxaa waaye basbaas guduud wax yar lee ku shubayaa. hadda waxaa ku darayaa waa xawaaji kaari. digsiga qiiqiisa waxaa waaye waxaa ku darayaa kadibna xawaaji kaari yaa kusoo daray iyo basbaaska shiidan. hadda waxaa ku darayaa maraq digaag, barbarooniga shiidan, basal shiidan iyo cusbo ayaa ku darayaa. kadib waa isku soo laabanayna sababtoo kaamirada karkarka ayaa qiiq ka dhigayso si fiican mu arkaysa. markaa kusoo dardaro ayaa isku soo laabanayna. asxaabe kulli waa ku dardaray. haddana waxaa ku darayaa waraqaar ama bay leaf qof walba siduu u yaqaano kaasaa ku darayaa. haddana waxaa ku darayaa yaanyo. hadaaratid saana ku dhaafo kartaa laakiin aniga yaanyada jecla dhadhanna u yeelay kalar qurux badanna waa u yeelay. yaanyadan yaanyada shiidan waaye. iyo sidoo kaleeto waxaa ku darayaa waa boorash amaba oatmeal qof walba siduu u yaqaano. mid dhadhan ama mid shiidan mid gaarabtid waa isticmaali kartaa adaa dooqa iskale. waakana boorashkii yaanyadii kulli waa kusoo shuba. hadda waxaa sameynaa dabka u gaabinaa. boorashkaada waa ujeedin saan oo dhadhan yahay laakiin markuu bislaado waxaa waase dhan wuu isku milmaaya. kaaliska arag mishaari amaba shurbad oo waxaa kasoo baxayso inaba caadi ahayn. ila socda. haddana waxaa waay dabka u gaabinaya. hadaarti waa dabooli kartaa hadaartid insaan oo ku aadi kartaa laakiin aniga waa daboolayaa sababtoo miradii carafta dhan inay banaanka u baxdo. asxaabta hadeertan waxaa ku darayaa xawaaji iyo kabsar. xawaajigan xawaaji aniga isku dardarsaday isku shiiday waaye. kadibna hadda waa kusoo daray waa ujeediin kabsarta barafkay ku jirta hadda way dhalaaleysaa si fiican u walaaqaya. hadda waa ujeediin oo maleynaa
boorashkii asi dhan wuu shiidmay oo hadaay waaweynka ahaay si fiican ayuu iskugu milmay 2 daqiiq ilaa 3 daqiiq ayaa daboolayaa kadibna dabka waa ka daminayaa shurbadii diyaar waaye xilliga furka soo dhawaaday shurbadii aan shubayaa saa ujeediin innaba caadi ma ahan maasha allah bismillaahi maasha allah asxaabta waa kana ugu dambeyntiina shurbada saanay kusoo baxday anaga waxaa jecelnahay inaan shurbada ku cunno basbaas iyo yogurt saladkan wuxuu ka samaysan yahay caanaha yogurtka qajaar iyo nacnaac ama peppermint innaba caadi maahan marka ku kor shubatid dhadhankiisa lagama sheekeyn karo allahumma baarik ilaahow noo barakee inta haysanina sii inta aan video lamida ku kulmeenin waxaa idinka tegayaa nabad iyo jacayl assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaas iyo amaana allah